فنانة نجم نشاط لaba maalin ciida ka hor sidaan ay ahayd waxaan arkay Najma Nashaad oo xijaaban maasha Allah balse maalintii ciida ka bacdi xaalku sidaan u noqday نجم نشاط tolo waxaan u maleynaa waa markii labaad mise markii saddexaad oo barnaamijkeedaan aan ka hadlayo jimay hore waxa uu sheegtay inaad fanka ka baxday haddana mar labaad baa lagu arkay iminka masleeday waa dib ugu soo noqomaysaa wala ilaahay iga madoobeeyo habeenaa ku seexda maleynaa ku sii jiro ilaahay irsaaqad daanto xalaal meel kalena ha iga siiyo haddaba Soomaaliya horta mid baan idin sheegayaa fanaan inta ku dhaho fan baan ka baxayaa ha aamin mid dhifo oo ilaahay dartiista go'aan u qaato iyagii ka dhax baxo meel kala tago sidaas buu ku badbaadiyaa laakiin intuu fanaanku fanaaniinta kale ku dhex jiro fan inuu ka baxaa sugin maalmaha duu ka maqnaado kii soo laabta liidaa maama Soomaali waxaa jirta dhehayso mukulaal madax dooli kama xajiso yacni mukulaal ama yaanyuur ma dhihi karto dooli cuni maayo go'aan ka qaatay iyadoo afka ku sidata la arkaya fanaaniintuna waa intaas haddaba fanaanada Najma Nashaad maalmo ka hor ciidii maalintii ka horreeyay ayay waxay ka qayb gashay barnaamij diini ah oo dumar ay qabsanayeen iyadoo xijaaban qurux badan ay halka tagtay qushucsan waliba ilmeynaysa maalinkii markii halkaas tagtay waxay dhahday hal ii duceeyo in ilaahay iga madoobeeyo shaqadan shaqad aan tan ilaahay ii sahlo yacni fanka lacag bay ka sameeyaan fanaaniinta dad ogeyn hadii kala sidii markii loo sameeyay oo loo duceeyay maxaa la islahaa ugu yaraan hadii bil iyo laba bilood xitaa way adkaysan doontaa bedel kale raadi doontaa la islahaa laakiin sidaa ma dhicin habeenkii ciidiba mikrofonkeedii hore ka soo qaadatay waana sababta markii barnaamijkeedu meediyaha qabsaday ee fanka ka baxay ee dhehayso aan muuqaal uga soo sameey waayay waan ogaa waxa sugayay in maalin ciid soo socoto maalintaas ciidnaana showna jiro hargeysa show ka jiro hargeysana ay joogto showgaasna imaad doonto laakiin hal mid ay sameeyay showga halkii mid oo sameeyay waxay xijaabkii wadatay ugu yaraan waxay badhaa hadii mikrofonkii aan ka maarmi waayay oon heesti ku soo laabtay xijaabkii balan xoogaa yaraan adkeeyo xijaabkaasna in ilaahay ku sugan maahane maalmo kadibna iyadoo iska dhigtay inuu arkeedin haddaba fanaaniinta horta ma xumo midda koobaad ee waxa ay barteen shaqadan waxaana lagu bartay shaqadan lacagayna ka sameeyaan showyada iyo barnaamijyada ay sameeyaan lacaga badan ay ku helaan shaqo ka duwan haday helaan yacni business oo kale fiican oo dhaqaale fiican ka soo galayo kala haday sameystaan oo kale fanka way ku iloobi karaan hal qof ay xasuusinayaan xamdi bilan fanaanada lahay ayanta media ayanta ku aragteen fanka iyo ayadoo masrax joogtay ma aragteen waamaya ganacsatay iska noqotay dukaana uga furan dabka halkaas ay wixii ku iibsataa habeenkii waa ka hooyaadaa barqadina waa u soo kacdaa halkii maroo galmudug iyo wax loo qaadaa la dhaho galmudugnima soo riixdo ee ku soo tuurataa laakiin sideeda kale fanki waa ka jeesatay oo mashquul kale iyo inay business bedela ay heshay muujinayso haddaba fanaaniintan maadaama aysan heli karin bedelkii ka duwan ayna adag tahay inay go'aan alla dartiis u qaataan fan inay ka baxaan haskunina kii ku dhoofanaan ka baxa maalmo kadib waa kii kugu soo hor laabto haddaba fanaanada Najma Nashaad waxaan leeyahay marka hore go'aan horta ha gaari waa qalbi jilacsantaa waan dareemayaa laakiin markaad meel wax ku soo ogaatid laba mid waxa ugu muhiimsan waxa ay tahay in ilaahay dartiisa waxaan iskaga dhaaftin inaad go'aansatid maalinkaas sidaa go'aansatid oo ilaahayna ku aqbalo ka hanuuniyo ku soo laabamaysid waana ka dhax bixaysaa kuwii dhex joogtay hadaba ka bixaysidna dadkii ka dhax bax oo fanaaniinta ahaa iyo ganacsi kale inaad raadisid haddana inta fanka iskaga jirtid sababtoo inaad dambi ku jirto waa ogtahay ganacsi kale raadso kugu bedelo markaa heshid tartiib markaas kabaayo isku dhuf Soomaali xitaa inay ogeysiiso muhiim ma kaliya inaad waxa ay ka dhac baxdo ilaahay ayaa hortagtid ayaa muhiim ah haddaba taladeed sii leed Najma Nashaad iyo fanaaniinta la midka ah qaybta comment uu reeb waa muhiim